السلام عليكم عسى wanaagsan dhammaantiin asxaabta youtube-ka tiktok-ga instagram-ka meel walba oo joogtaan inta i jecel inta i follow garaysa kusoo dhawaada Fatuma Resilience mar labaad iyo mar saddexaad gacmo furan kusoo dhawaada waxaan rabay inaan idiin sheego horta baryaha waxaan ku jiray furitaanka muxuu ahaa platform-kayga ama website-kayga aan buugta ku iibinayo oo aan muxuu haayay caalamka meel walba joogtid aad buugta ka heli doontid insha Allah oo imikadan hadii aad u baahatid aad helaysid buugtaydaas saddexda buug aan qoray kaliya waxaan rabay inaan idiin sheego buugta aan qoray waxaan u qoray waa sababo jira waa ii sheegay hagitaan waa cid u baahan in la gacan qabto u baahan hagitaan in wadada la tuso madan cusub haddaad timaadid waxyaabaha la kulmaysid iyo waxyaabaha lagaaga baahan yahay inaad baratid ama aad fahantid casharadaas ku qoran waalidka gabdhaha cid walba oo wadanku cusub sida u fahmi lahaayeen nidaamka waxbarasho iyo kala duwanaanshaha muxuu haaye buugayga nolosha ka hadlayana de noloshayduba ka hadlaya kaasi oo muxuu haaye qofku markuu noloshiisa ka qoray buuga wuxuu iska reebaya waa taariikh wuxuu iska reebaya waa xasuus wuxuu iska reebaya muxuu haaye wax kasta oo qofkaas uu niyadiisa ku hayay ayuu buuga ku qoraa markuu qofku uu noloshiisa ka hadlay ma uu rabo inuu wax qoro aniguna waxaan u qoray dadka qaar ba oran doona maxaa aad uga sheekaynaysaa maxaad u soo qortay oo waxaan ka daalay aamusnaan waxaan ka daalay qarsoodi waxaan ka daalay yacni dhaqan muxuu ahaa wax walba ceeb u arkaya waxaan ka daalay oo kale muxuu haayay aduu wax kasta oo ii sheegay qofka bini'aadamka culays u keenaya ayaan ka daalay buugaygaasaan ku qoray waanan ugu talagalay inaan qoro cid walana akhrisato qofkii raba noloshiisa inuu hagaajiyo ama nin lahaw ama single mother ahaw ama qof weligii guursan ahaw muxuu ahaa buugaygaasi markaad akhrisatid uun igu soo noqo aniga ya qof dumara anigu lama jecli yacni waxyaabahan la soo kulmay oo dhan inay ku dhacaan ama hadda ii sheegay aad imikadan ku jirtid buugteeda akhrisatid laga yaabaa inay ku caawiso oo ii sheegay aad baraarugtid ya inteena badan qaybubad baan ku wada jirnaa falee baa inagu socota ya hawo kala lagu jiraa waxba war looma hayo wacyi ma jiro waxba lama fahmayo bulsho waxa lagu dhex jiraa gabigeyga dhanba qufulan waxba fahmayn oo qofku haduu ooyo ceeb u haysata qofku haduu hadlo ceeb u haysata qofku haduu iraado xaqayga aan soo rito ceeb u haysata qofku haduu iraado waxan ba igu dhacay ceeb u haysata wax kastaba ceeb iyo xaaraanta uu lagu hayo waxaana la isku qalday maxaa xalaalay maxaa xaaraana dhibaatada haysata weeyaan dadkan maxay bulshadan Soomaaliyeed buugayga noloshayda aan kaga hadlayna qofka soo akhrista ee igu soo noqda ayaan ka wada sheekaysan doonaa inta ka hor kama sii hor dhacayo kama sii hor hadlayo waxaan sugayaa idinka ra'yigiina qisadayda noloshayda markaad soo akhrisatiin qof kastaba comment-kiisa sugayaa comment-kana ama igu soo qortaya video-ga hoostiisa ama ii soo gashaya email-kayga website-ka ku qoran oo halkaad igu soo qortaya journal dhan ra'yigiina sugayaa waanan hubaa yacni dadka qaari inay ii soo caayi doonaan dadka qaari oran doonaan naga raali noqo dadka qaari oran doonaan maan mooday sidan dadka qaar oran doonaan xataa wax isweydiiyaan iyadoo haysata hanti iyo nolol maxaa geeyay Mareykan maxaa geeyay halka iyadoo ii sheeg wax walba u wanaagsan yahay wax walba haysata sababtaas dadku isweydiiyaan qof walbana wuu i weydiiyaa intii garanayso dhan ila soo xiriirisay idin kama hor dhacayo walaalo buugayga iibsada akhrista soo fahma igu soo noqdo markaa ya noloshayda ma arag yacni qof soo jeeda imsa bilood 3 bilood mise 4 bilood oo soo jeeda hurdo la'aan habeen iyo maalin isku xiriirisa u soo jeeda weligii ma arag ya anigaana is arkay qof maxay hayd ooyaya 2 bilood ya habeen iyo maalin ooyaya ana is arkay dumarkana lama jecelin harka gaadhaan lacag la'aan ma ahayn faqrina ma ahayn waxa iga oohiyay nolol xumana ma ahayn
buuga soo akhristaa ila soo arkaa ila soo fahmaa maxaa meesha ku hayaa maxaa halka yaala ya markaana igu soo noqda ama aan iscayno markaa ama aan is amaano ama aan ii sheegay de waxaan is odhano Soomaalida wax walbo laga sugaya shar iyo khayrba inkastoo sharku ku badan yahay ya imika xataa buugayga digital books kan iibinaya xataa waa la qoori laayay waxa la yiri yaa wax ka iibsanaya yaa wax ku qabanaya yaa akhrisanaya ma jimba waxaad ka iibisaan ma jimba kula soo xiriirana ma jimba ya daanu ribooskana kuma fiicliyo ma jeclina dadka message-da inta soo qaada halkaas oo dhigo waxyaabii la soo qoray marka idinka idii daayay amal muxuuha shaydaanka iyo wax kasta ila social media ana soo fadhiistay waxaad oranaysiin badhaha cidna waxba igama gelin cidna rajo kama sugayo waa idinka marka idinka iyo waxa idin daayay akhriska buuga noloshayda markaad soo akhrisataan ugu soo noqdaa inta ka horeysa ya su'aalaha isweydiiya ya niyadiina ku jira iskaxdiina ku jira comment-kaad igu soo qoraysiin luuqaad igu soo galaysiin idinkan idin daayay marka halkaas kaga baxaya videogan ay daawanaysa waa daawan kartaa aad baad mahadsantihiin hana iloobina subscribe soo dhaha YouTube-kayga like comment fiican ka taga videoga kan ku xiga ay noo ahaato insha Allah cidii jecel iyo cidii wanaagsan ee positive ka shaqeynaysa iyo wanaaga bani aadamka ayaan mahad celinayaa maca salaama